subscribe deh channelka Rijaalul Janna si aad noogu garab istaagto nooguna dhiirigeliso inaan soo bandhigno qisooyin kale oo xiiso leh aan sii wadno qisadeena. Nin ayaa yiri aniga iyo qoyskaygu ayaa ku sugneen meel lagu damaashaado oo lagu nasto. Si lama filaan ah ayaa waxaa noogu soo yaacay caruurtii waxayna noo sheegeen in gabadheedii yareed ee meel biyaha ku jiraan ku dhaxdhacday. Waynu soo orodnay waxaan la kulannay gabadheedii oo biyaha dul sameynaysa. Si degdeg ayaan biyihii uga soo bixinay. Dadkoo dhami waxay rumaysnaayeen inay dhimatay gabadhayda. Waxaan ula orodnay isbitaalka. Dhaqaatiirtii ayaa ula cararay qolka gargaarka degdega ah. Wax yar kadib waxaa soo baxay dhakhtarkii wuxuuna ii sheegay inay gabadheedii geeriyootay. Isla markiiba ilin ayaa ka soo daadatay indhahayga. Waxaa isbitaalka yimid dhakhtar kale si uu u hubiyo geerida gabadhayda. Si degdeg ah ayuu qolka uga soo baxay isagoo iigu bishaareynaya inay gabadhaydu wali nooshahay oo wadnaheedu shaqaynayo. Codka dhaqdhaqaaqa wadnaheeda ayaa farxadii u soo celiyay qalbigii murugaysnaa. 2 maalin kadib Ilaahay mahadii waxaa laga soo bixiyay isbitaalkii. Dhakhtarkii wuxuu igu yiri gabadhaada xaaladeedu waxay ahayd arin mucjiso ah. Muddo ayuu wadnaheedu istaagay haddana dib ayuu u shaqo bilaabay iyadoo aanan maskaxdeeda ama keliyaheeda dhibaato gaarin. Kadib ayuu i weydiiyay maxaad noloshaadii samaysay oo wanaag ah oo uu Ilaahay kugu karaameeyay. Waxaan ugu jawaabay ma xasuusto wax aad u weyn oo aan sameeyay balse waxaan gutaa waajibaadka uu Ilaahay i saaray sida salaada. Cabaar ayaan fakaray waxaan xasuustay inaan mar kafaalo qaaday gabadh yar oo agoon ahayd oo aan bixin jiray nolosheeda iyo waxbarashadeeda. Ilaahay mooye cid kale uma sheegin iyo idinka oo aan hadda idin sheegayo. Gabadhaas yar ee agoonta ahayd oo aan nolosheeda badbaadiyay ayuu Ilaahay iigu abaalguday inuu nolosha gabadhayda badbaadiyo. Qisadan waa mid kicinaysa dareenka muslimiinta iyo dadka wanaagsan. Si gudbi si dadka kale ugu waana qaataan. Subscribe deh channelka Rijaalul Janna si aad noogu garab istaagto nooguna dhiirigeliso inaan soo bandhigno qisooyin kale oo xiiso leh.